Asalaamu calaykum daawadayaal waa Bowlimoog Media aad halkan uga barateen inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha weyn waa maalinimo Khamiis 8 bishii shanaad 2020 waxaanu ku bilaabeynaa warkeena maantay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Axmed Macalin Fiqi ee maamulka Galmudug ayaa waxa uu fariin culus u diray amaba digniin u diray ganacsatada iyo isgaarsiinta ku dhaqan gobolkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya oo lala beegtay qarax kaas oo la sheegay in loogu xiray gaarigiisa mar uu marayay meel u dhaxaysa guriga hooyooyinka iyo hotel Muna ee degmada Xamarweyne waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal waxaa la soo gudbiyay habraac loo marayo soo xulista xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo galaya deegaanada Somaliland fadlan haddii tahay markii ugu horeysa channelka soo booqato subscribe saar channelka hana kala baqaylin adigoo mahadsan galmaaneelkana furo si aad noola socotid haddaba daawadayaal waxaanu idiin haynaa maanta wararkeena aan ku bilaabeynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu digniin culus u diray dadka ganacsatada iyo shirkadaha isgaarsiinta ee ku sugan gudaha maamulka Galmudug waxaana uu yiri waa la xisaabtami doonaa kuwa lacagaha baada siiya ayuu yiri al-shabaab maruu saxaafadda la hadlayay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lala beegsaday qarax mar uu marayay degmada Xamarweyne meel u dhaxaysa guriga hooyooyinka iyo hotel Muna sarkaalkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu qaraxaasi ku geeriyooday sarkaalkan oo ahaa sarkaal ka tirsan qaybta gobolka Banaadir ayaa waxaa la sheegayaa qaraxaasi inuu u geeriyooday wax kaloo yeelooyin kale amaba cid ay saameyso oo kale oo saxaafaddu ay soo sheegtay weli markaas ma jiraan waxaanu idiin haynaa oo kale daawadayaal habraac cusub oo lagu sameeyay habka loo marayo doorashooyinka soo socda amaba loo soo xuli doono labada gole ee baarlamaanka habraacan oo weli qabyo ah lagana yaabo in wax ka bedel lagu sameeyo ayaa waxaa soo saaray amaba soo baalkii isku dabarida guddi isku dhaf ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo loo xilsaaray inay kasoo tala bixiyaan sharcigan doorashooyinka oo markii hore aan qeexaynin hanaanka loo marayo soo xulidda xubnaha Somaliland ku matali doona dowladda federaalka doorashooyinka soo socda marka ay dhacaan habraacan ayaa u eg doorashooyinkii 2016 waxaana lagu sheegay in xildhibaanada ay soo dooranayaan ergo ka kooban 75 iyadoo doorashaduna ay ka dhici doonto ayaa gudaha ku nooli waxaanu kaloo idiin haynaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Tayyip Recep Erdogan ayaa waxa uu khudbad dheer ka jeediyay gudaha baarlamaanka kadib markii uu yiri waxa aanu gaarnay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markuu dalkaas qaatay nidaamka loo yaqaan ayuu yiri dimuqraadiyadda waxa uu ugu yeeray waxa uu kaloo xariga ka jaray meel oo ku yiri waa jasiirad aad u qurux badan oo ku taala duleedka Turkiga waxaana duleedka magaalada Istanbul waxaana uu yiri horumarka aanu gaarayno iyo dhaqaalaha kobaca ee dalkeena iyo tiknoolajiyadan waxa iska leh ayuu yiri dimuqraadiyadda aanu qaadanay hadaanu dalkeena dimuqraadiyaddaas aanu ahayn waxaanu oo dhaqaalaha iyo horumar marnaba maynaan gaarnin ayuu yiri Tayyip Recep Erdogan ayaa xariga ka jaray jasiiradda quruxda badan waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal wasiirada dhaqaalaha ee dalalka midowga Yurub shir ay isugu yimaadeen ayaa waxa ay ku sheegeen amaba ay ku dhawaaqeen in ay bixin doonaan lacag 286 bilyan oo dollar taasoo ay ugu deeqi doonaan dadka ganacsatada ama shirkadaha yaryar ee dalalkaas Yurub xilligan oo dhaqaalaha dalalkaasi hoos u dhacay waxaa kaloo shirkan lagu soo qaaday in shirkaasi lagu soo hadal qaaday in la khafiifiyo lockdownka amaba cadaadiska coronavirus-ka xilligan lagu jiro wada saaran dalalkaasi Yurub oo sheegay inay sameyn doonaan wax ay ugu yeereen qorshe lagu horumarinayo dhaqaalaha dalalkooda laguna kicinayo ganacsatada yaryar waa Bowlimoog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh daawadayaal wassalaamu calaykum waraxmatullahi